wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka midnimo meediya qodobada ugu doorkarona waxa kamid ah maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay olole cusub oo lagula dagaalamayo burcadka guddiga taakulaynta dadkii ku waxyeeloobay weerarkii Kismaayo oo la magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo sababta safarkiisa oo la shaaciyay howlgalo dad badan lagu soo qabqabtay oo ka socda magaalada Dhuusamareeb iyo laamaha amniga oo ka warbixiyay wafdi ku wajahan gobolka Bakool iyo qabanqaabo socota shirweyne lagu wado in uu ka furmo magaalada Garowe iyo waxyaabaha looga hadlayo shirkaasi dawladda Sacuudiga oo fasaxday markab xoolo ka qaaday Berbera oo ku xayirnaa Jidda Ilhaan Cumar oo si adag uga falcelisay qoraal Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku astaysan tahay 15 July sanada 2019 qodobadaasi oo faahfaahsan waxa la diyaaraa wariyaheena Axmed Xasan Ramaas mahadsanid Sagal Xaaji Yuusuf Sagal Cidoon madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la filayaa inuu u ambabaxo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud markii uu tago Dhuusamareeb ayaa la filayaa inuu kulan la qaato ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maalmahan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb iyagoo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah wararka qaar oo la helaya ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Waare uu ra'iisul wasaaraha kala hadli doono inuu yimaado deegaanka Hirshabeelle waxaana sidoo kale wararka laga helayo ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Khayre uu u yeeray madaxweynaha Hirshabeelle magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa la filayaa in wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Sidiiq Warfa uu ka furo shir muhiim ah oo ku saabsan arrimaha shaqo abuurka dhalinyarada shirkaasi oo socon doona muddo 3 cisho ah ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saari doonaa horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa amniga dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxay howlgallo ka wadaan magaalada Dhuusamareeb kadib markii shalay halkaasi uu ka dhacay qarax qasaaro geystay ciidamada amniga ayaa la sheegay in gacanta ay ku dhigeen rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kadib markii ciidanka amniga ay shacabka ku wargeliyeen in raggaasi laga shakiyay dadka deegaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa tilmaamay in ragga la qabtay mid kamid ah uu watay bastoolad isla markaana haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka amniga madaxweyne Laftagareen ayaa waxa lagu wadaa markii uu gaaro degmada Ceelberde inuu kulamo la qaato maamulka degmada odayaasha waxgaradka iyo taliyaasha laamaha amniga ila wareedyo ayaa sheegaya in ujeedka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee degmada Ceelberde ay tahay sidii loo dardargelin lahaa dhisidda golayaasha deegaanka oo ay socdaan dadaalo lagu dhisayo degmada Ceelberde wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee maamulka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ayaa ku howlan dhisidda golayaasha deegaanka iyadoo wafdi ka socda oo hordhac u ahaa madaxweynaha uu shalay gaaray degmada Ceelberde ee gobolka Bakool Ilhaan Cumar oo ah haweeneydii ugu horeysay ee Soomaali ah isla markaana noqotay xubin ka tirsan Congress-ka ayaa waxay ku dhalatay Soomaaliya waxaana inta badan caruurnimadeedii ku soo qaadatay xero qaxooti oo ku taala Kenya waxayna Mareykanka tagtay iyadoo 12 jir ah Ilhaan Cumar ayaa si weyn u cambaareysay hadalka Trump ka soo baxay isla markaana ku sheegtay in madaxweyne Trump uu aad u careysan yahay isla markaana aanu ogoleen haweenka ka tirsan Congress-ka Mareykanka kuwaas oo ka soo jeeda qowmiyadaha madowga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso oo gudoominayay shirka amniga ayaa bogaadiyay oo la dagaalanka burcadda hubeysan ee dhibaateynaya amniga caasimadda taliyaasha amniga gobolka ayaa la wadaayay gudoomiyaha warbixin ku saabsan howlgallo ka dhan ah mooryaan hubeysan oo horey ugu daba jireen kuwaasi oo dhibaatooyin ka geystay degmooyinka Kaaraan Cabdicaziis Yaaqshid iyo Daynile guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen midnimo media tan iyo intaan dib wada kulmi doono warkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo